بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكما هتسين عكاش introduction كاس أما مارتي تقديم كاس مسمى وحن كليه ونقول نقولنا وحواي وحن كميد عدد الصوماليات فرصة ده هلاي مارتي سكولا دان وهلاي فرصة ده كدبنا جعل إنه وحكي القرآن أنت ساك سوقات له وحن روا مركا إنان موضوع كسونه موضوعا أهورته بربرك مركا جودهان لفيريو waxaan Soomaalida dagaalkeeda sokeeyaha waxa la dhihi karaa waa xukamid yahay kuwa ugu dhaadheer ee qaaradan Afrika soo maray uu kamid yahay oo marka la fiiriyo waqtiga uu bilowday ilaa hadda waqtiga uu socdo fadra ahaan wuxuu kamid yahay kuwa ugu dhaadheer tan kale wuxuu kaloo yahay markii la fiiriyo bani aadamka iyo dhibaatada ka soo gaartay kuwa ugu maaragtay dhibaatada badan ugu dhaawaca badan oo macnaheedu yahay yani marka la eego dagaalka sokeeyaha Soomaalida markii uu bilowday ilaa iyo hadda inta qof ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay tiro koob rasmi ma jiro laakiin waxaa laga hadlayaa boqolaal kun oo qof inay ama dagaalada ku dhinteen ama dagaaladu mushkilo ay abuureen ay ku dhinteen oo ama majaaco ama maaragtay maxaan ku iraahdaa dandarro kale oo dadka ku dhacday marka la fiiriyo marka waxa laga yaabaa dadka qaarkii markay ka taariikhaynayaan dagaalka sokeeyaha Soomaalida markii dawladdii militarigu meesha ka baxay ayuun bay ka soo qaadaan maaragtay ayrahan dagaalkii sokeeyuhu 1990kii buu bilowday taas sax ma aha anaga marka researchiga kulli anigu iyo intaan in la midaba markay dib loo raaco oo la fiiriyo qeexista maxaan ku iraahdaa civil war waxa la dhaho ama dagaal sokeeye waxa la dhaho barnaamij waxaa jira la yiraahdo correlates of war project oo caana oo data setka civil warada aruuriya wuxuu ku qeexaa waa marka 1000 qof oo casualty oo laba dhinac u dagaalamayo oo dhinacna dawlad yahay dhinacna uu ka soo horjeedo casualty-gaas marka dabcan dhimasho kaliya maaha ay sanad muddo ah ay dhacdo marka qeexistaas ayaa la yiraahdaa waa 1000 qof inay sanad kasta dhimasho iyo dhaawac iyo wixii la mid ah ay ka gaaraan oo labada dhinac haddii dawladda kaliya intay hub qaadato ay shacabka laynayso oo dawladda aan casualty soo gaarin civil war ma ah laakiin haddii qolyaha kalena ay hub haystaan oo askartii dawladda ay wax ka laynayaan kuwan askarta dawladduna ay ayaguna laynayso markaas waxaa imaanaya maaragtay waxaa la dhahayaa waa dagaal sokeeye marka dagaal sokeeye marka sidaa loo qeexo Soomaaliyana taariikhdeeda la fiiriyo waxaa anagu kulli anigu iyo dad kaleeto aan u aragnay dagaalka sokeeye Soomaaliya wuxuu bilowday 1978 inqilaabkii ka hor isagoo inqilaabkii kadib Cabdullaahi Yuusuf uu maaragtay dabcan madaxda ka ahaa markii inqilaabkaasi uu maaragtay meesha dhacay dawladdii markaa meesha jirtay waxay u tiirisay gobollada kamid ah Soomaaliya arintaasaana marka waxay keentay collective punishment ama yani ciqaab wadareed in lagu sameeyo gobol dawladdii marka ay dhibaato gaarsiiso dabcan dadkii inqilaabka ka dambeeyana jabhad bay ololeeyeen jabhaddii ay ololeeyeenna waxaa ka dhashay inay maaragtay ayaguna ay dagaal soo qaadaan oo ay la dagaalamaan waad garan kartaan marka xilligaas xuduudaha Soomaaliya iyo dagaaladii iyo dhinacyo fara badan inay ku waxyeeloobeen marka horta markaa ayuu dagaalku soo bilowday bilowgu waa ka laakiin big ugu sareeyay wuxuu ku gaaray markii ay dhacday dagaalkii Soomaaliland waqooyiga Burco Hargeysa oo de markaa tiradii ugu faraha badnayd ama dhimasho ama dhaawac ama qax
ay markaa ka dhacday magnitude wise goboladaas oo xuquuqda aadanaha iyo mass mediada caalamku ay markaa report gareynayaan geeridu inay tobanaan kun yani meelaha qaar African Watch oo kale 50 kun ay ku estimate gareysa kaliya yani labada magaalo iyo wixii ka dhacay markaad eegto dagaalka sokeeyaha iyo xajmigiisa iyo xooggiisu sidaas buu u soo socday ilaa ay dowladdii dhexe duntay oo markaa dowladdii iyo jabhadihii uu dagaalka sokeeyuhu ka dhexeeyey ay hal mar isu bedeleen dagaalka sokeeye weji cusub oo qabaa'ilkii Soomaaliyeed ee factionska iyo jabhadihii ay kala hogaaminayeen inay isku laayaan bilaabeen marka saas marka loo conceive garay ama loo dhigo waxaa marka la isweydiin karaa war dagaalkan horta sidiisaba ay Soomaalidu isku laynayso maxaa sababay what are the main causes warqadda aan caawa rabo inaan idinla wadaago waa warqad publishida oo waqti hore aan aniga iyo Cabdullaahi Bariise aan publish gareynay nuxurkeeda yani waan update gareyn doonaa laakiin nuxurku warqadaasi banaanka taala waa warqad caana kulay intiina qaarkiin inaad aragteen waa laga yaabaa marka annagu waxaan markaa u dhignay sababaha keenay dagaalka burburka waxa waaye waa badan yihiin waana kala muhiimsan yihiin waxaan nidhi 3 baa ugu muhiimsan 4 kalena waa contributing causes oo waa waxbay kordhiyeen marka 3da muhiimka aan anagu ka dhignay midka ugu sii muhiimsan ee aan dhihi karo dagaalkeenna sokeeye waana sababtiisa welina maanta waa taagan yahay waxaan anagu ku magacawnay tartanka loogu jiro awoodda siyaasadeed iyo maxaan ku iraahdaa iyo resourceska ama yani antida haddii berigii hore geel lagu dagaalami jiray ama caws lagu dagaalami jiray ama wax lagu dagaalami jiray dowladnimadu waxay la timi wax ka duwan in lagu diriro oo power ah oo ah resources kale oo markaa berigii hore aanaan aqoonin oo ah dowladda in inta la control hanti loo isticmaalo waxyaalaha noocaas oo kale ah competition for power and resources ayaan ku magacawnay qodobka saldhigga u ah dagaalka sokeeyaha Soomaalida kaas markaa dib u eegta marka wuu ka horeeyaa inqilaabka Cabdullaahi Yuusuf iyo saraakiishii la socotay ay sameeyeen wuu ka horeeyaa wuxuu ka soo bilaabanayaa dowladnimadeenu la soo bilaabanayaa SYL oo markaa ahayd xisbiga ugu awoodda badan sideebay u maareysay mashruucana imanaysa markaa dib ugu noqoto waxaa arkaysaa doorashadii 56 iyo tii 59 iyo tii 64 iyo tii 69 intaba sida ay u abaartay SYL more or less dalka waxay ka dhigtay dal hal xisbi ah kii 59 xisbiyadii mucaaradku way boycott gareeyeen waxaa ka dhacay wax xiiso badan Maxamed Xaaji Muqtaar iyo ayaa wax ka qoray waad akhrin doontaan haddii aad u baahataan runtii arrintaas ayada ah waxay dhalisay hab ah qofku markaa powerka haysta inuu wuxuu dardari karo dardaro oo uu soo xoogo maaragtay awoodda soo xoogo 69kii doorashadeedii waxaa la yiraahdaa waxaa ka dhashay yani 2 arrimood oo waaweyn marka laga sheekeynayo maxaan ku iraahdaa militarigu inuu meesha qabsado waxyaalaha sahlay oo shacabka u nugleeyay militariga inay aqbalaan not only inay aqbalaan inay askarta ay u sacbiyaan waxaa ka mid ahaa sidii SYL ay u maareysay powerka markaas ay gacanta ku haysay iyo kuraastii 69kii sida loo soo boobay waxaa kaloo mararka qaar la sheegaa triggeriskii dhacay xataa ama dhacdooyinkii waaweynaya dhacay inay sal ku lahayd doorashadaas oo aan loo maareyn doorasho xor ah xalaal ah fiican transparency inaan loo maareyn markaa qoladii meesha joogtay ay waxay soo xoogi karaan ay soo xoogeen taasna grievances oo ka dhashay grievanceskaasna uu dhibaatooyin fara badan keenay marka taa laga soo tago waxaa timid marka askartii inay xukunkii la wareegaan dastuurkii laalaan
xisbiyadii joojiyaan awal xilligii SYS afartii sanaba maraa doorasho la aadi jiray waxaaba lasoo kala xadxado ama lasoo kala bursadee yani process waxaa jiray powerka lagula kala wareego xilligaas madaxweynihii joogay ee koowaad waa laga qaaday actually waxaaba kasii horreeyay ra'iisul wasaarihii dalka xorriyadda gaarsiiyey waa laga qaaday madaxweyne kalaa yimid madaxweynihii ama labadii ra'iisul wasaareba aan dhaho ee gaarsiiyey maxamed ibraahim cigaal iyo cabdullaahi ciise aadan cadda kala wareegay oo sigii dowladdii dhalatay waxay noqotay dee dabcan marka saas la leeyahay waxaa mararka qaar la fiiriyaa dalal kale oo afrikaan oo waxaa jira dadkii xilliyadaa hore oo ama trusteeship ha noqoto ama gumaystaha uun markaa uu joogay meesha dadkii ugu sarshaday ha noqoto dadkii joogay ayaa sii durugsaday qolyahaas aliista way durugsan kari waayeen oo soomaaliya waxaa yimid nidaam habaysana gumaystuhu ku wareejiyey aadan cabdille 67 si degan uga degay dabadeedna cabdirashiid allah naxariistay dabcan waa la dilay saas bay arrintu u socotay askartu waxay keeneen marka inay xukunkii xoog ku qaataan marka waa arrin cusub oo muhiima in la fahmo waayo awal haddii wax doorasho lagu kala qaadi jiray hadda xoogaa lagu kala qaatay xooggii markay ku qaateen waan soo celinaynaa xukunka muddo gaaban gudahood ayaa la isku ogaa way samayn kari waayeen oo isla markiiba waxay bilaabeen inay wixii baa laysii yara macaadi waxaa meeshaa ka baxay marka inaan dimuqraadiyad rajo laga yeelan askartii kale ee qoryaha la haysatay markii dagaalkii 77 lagu soo jabay waxay is yiraahdeen kuwaani si kale ku tagayaan ma lehe xoog meesha uga qaada ilaan xooggiyaa la sharciyey marka militariga ahaa coup iyo counter coup iyo waagaa dagaal qabow iyo waxaasna way jireen marka xooggii ayaa wuxuu noqday ciddii markaa xoog inay wax ku raadiso mararka qaar marka waxaan idhahnaa anu kole idhahdaa haddii xilligaas askarta ay furnaa lahayd in dadku ay xisbiyo fura karaan oo ay tartan siyaasadeed geli karaan dee looma baahdeen kuuna looma baahdeen Ethiopia in la aado askar dhibkaas oo dhan looma baahdeen marka meesha bahashu ka khaldantay waa inay askartu bahashu xoog ku qaadatay hadday xoog ku qaadatay xooggii haba ku haysato laakiin oo waxyaamaha hore waxa dhidhisto laakiin meesha waxaa kaloo timid marka faktorka labaad oo ah inay xooggii ay ku qaadatay ku caburiso dadka repression annaga waxaan u bixinay faktorkaas labaad oo competition for power and resources waxaa wehliyey oo maaragtay haddana means ahaan inay cid alla ciddii far u qaada ay shan u qaado oo ay xoog ay ku jajabiyaan xoog isticmaalkaas xooggu oo faraha badan la wuxuu keenay in dadkii ninkii qori helay karaa qori qaato kii lugooy karaa lugooyo kii siyaasad ahaan u carari karo soo mucaaradi karaa soo mucaarado dagaalkii maaragtay background culus buu yeeshay tan saddexaad waxaan ku magacownay colonial legacy aan ku magacownayo annagu waa background dhiyay waxaan u tahay statekeena ama dowladnimadeena markii aan hambaabirnay oo aan niri dowladnimaan rabnaa waxaan ku baraarugnay dhowr gobol inaan u qaybsannahay oo gumaystihii dhowr gobol noo qaybiyey dhowrkaa goboloo naloo qaybiyey ayaa waxaa ka mid ah yacni saldhigga ah ee dowladnimadeennaba inaan u aragno wax gashiina ah 1960gii markii dowladdii labada gobol dhalatay saddexdii kalean ku daba joognay inaan labadan gobol wax u dhisno kumaanaan daba joogin tii annagoo saddexdii gobol oo kale raadinaynana waan ku burburnay marka ayada colonial legacy waxay ahayd marka aathaar ama dhibaato naga soo raacday wixii gumaysuhu ka tegey oo ahaa qaybsanaanteennii annagoo isle bal wax soo kororsada yaan intiina ku weynay aan haynay marka saddexdaa waxaan ka dhiganay saldhig waxaa jira kuwa aan ku magacawnay contributing causes berigii aan researchiga samaynaya PhD-da yaan dad fara badan oo dadka Soomaalida aragtida lagu tuhmo aan waraystay marka su'aasha aan weydiinayo waa maxay saldhigga dagaalku inta badan waxay la soo boodaan qabiilka qabyaaladda wax noocaas oo kale ah
marka annagu waxaan u aragnay qabiilku wuxuu ahaa social infrastructure jira ma aha asagu maaragtay sababta keentay laakiin wuxuu u noqday dadkii rabay inay dhibaatada abuuraan waxaan ku magacawnay mobilization instrument yani dadkii ayay waa lagu oleeyo waa lagu habeeyey ayaan ku magacawnay laakiin asagu inta qofku qabiil uu yahay uu laf hebel iyo laf hebel ka yahay wax macnaha hadda gaar u leedahay ma jirto itselfina wax dhiba ma laha yani taasaan anagu niri waxaa kaloon sheegnay laba arrimood oo muhiim oo aan ku magacawnay ayagana dagaalka sukayaha way sii maaragtay ay dedejiyeen mid waxa waaye qoryaha hubka availability berigii hore aan isdili jirno warmaha haysanay dagaal 40 sano socday 20 qof ku dhima jirtay marka laakiin hadda bahal automatic ah iyo mid weyn oo la ridaayo oo hal mara waa aragtay dagaalkii hadda 2018 qaraxii xamar ka dhacay boqolaal hal maalin ku dhimatay waliba daqiiqado gudahood ku dhimatay marka hub saa devastating oo dhib badan ayaa haddana dad wax magarataa gacantooda galay oo dhalinyaro u badan taa marka availability of weapons annaga waxaan la wadaagnaa adduunyadoo kale meesha hadduu hubku yar yahay waxaad arkaysaa yani markaad runta u fiirsato berigii jabhadaha markaad dib u fiirso masawirada cunug yar oo dhalinyaro ah oo aan kaba wadan oo qori qaali ah wata oo dabajeex baalkan la leeyahay weyn wata kaba oo dacasa oo watana ma jirto marka waxaad is leedahay yani availability of weapons kan dhibaatada ay keeneen yaa meeshaas kaaga muuqanaysa marka waxay noqdeen guri in lagu raadiyo in siyaabo kala duwan loo isticmaalo waxaan kaloo annagu sheegnay inay iyaduna jirtay waxyaalaha sii holciyey dagaalka waxaa ka mid ah dhalinyaro badan inay jiraan oo aan waxay hayaan jirin oo aan shaqo hayn oo aan waxbarasho hayn annaga dadkeena Soomaaliyeed guud ahaan Afrikaanka dhalinyaradu way nagu badan tahay yani oo hadda waxaa la yiraahdaa 75 to 80% maalin dhaweyd markii la sameeyey maxaan ku iraahdaa UNFPA iyo qarshayntu markay wax isla sameeyeen waxay sheegeen 75% inay 30 sano ka yaryihiin 35 sano ka yaryihiin macnaha waxa waaye numberkaas markasta waa jiray dhalinyaradeen aad bay u badnayd waa wax fiican haddii si wanaagsan loo adeegsado laakiin markay dhalinyaradaadii badanta aysan waxba hayn ee qoryo fara badan haysato oo all kinds of lagu diro waad aragteen waxaan naqabs mararka qaar phenomenadan hadda al-shabaab oo jirta waxa loo tiiri karaa arrimahan hadda aan sheegnay haddii si hoose loo fiiriyo ugu dambeyntii waxaan kaloo sheegnay dhaqankeena vindictive culture wax la yiraahdo inaan leenahay markaad guba iyo maxaan ku yiraahdaa gabayadii hore iyo waxa iyo markaad eegto waxa kuu soo baxaya dhaqankeena laftirkiisu inuusan caawinaynin inkastoo gabayo fara badan oo talo xulka Georgia iyo nabadda wax laga helayo haddana waxa badan wax iska dhicinta iyo aqliyadda maaragtay dulyarida ah ayaa aad u fara badan oo dhaqankii ayaa waxa ku jira elements ama qaybo maaragtay dhiiri gelinaya dagaal iyo wax iska dhicinaya cunfi iyo dhiig iyo waryaa ka orod maaragtay iska dhicida ah marka waxaan marka root causeskan inta uga baxaya 30 daqiiqo waxma iga dhiman soo dhamaadeen bas waxaan marka rabaa marka intaasi waa saldhigii waxa dhibaatadeena keenay su'aasha labaad baan gudbayaa waan soo gabagabeynaa insha Allah su'aasha labaad waxa waaye war maxaa intaasoo isku day ka dhacday markii ugu dambeysay 17 shir ayaa dhacay maxaan ku iraahdaa waxa la isku dayay in Soomaaliya dib loo yagleelo oo dawlad cusub loo sameeyo markasta oo wax la isku dayana wixii natiijadii la rabay ma ka dhalanaynin marka maxaa hortaagnaa waa maxay caqabadaha waxaa jira study-ga waxaan u isticmaalnay
framework ay isticmaaleen qolo Stanford University joogta oo professor yaa waxay study gareeyeen dagaal la sokeeyo fara badan markaa 16 ugu dambeeyay ayay si camiiqa u fiiriyeen oo hoose dabadeed waxay sheegeen mashaakilaadka waxay identify gareeyeen 8 caqabo markaas waxay yiraahdeen 8 caqabo meeshii mid kamida oo ka jiro waxa way ku filan tahay in dagaalkaas uu daba dheeraado ama inaan ciyow dawlad la helin way ku filan tahay ilaahay amarkii markaad 8 caqabo fiiriso buugga waxa la yiraahdaa by the way ending civil wars yani si dhamaynta ama buugga oo ay qoreen oo weyn oo buug weyn oo the textbook oo berigi iskuulada wuxuu ii ahaa one of the textbooks oo ahaa markii aan masters ka sameynay buuggaas marka ending civil wars ka markaad eegto markuu wax dhan soo koobo waxyaalaha uu hadda oo maaragtay aan sheegay qaarkood iyo waxyaalo kale oo caqabadaha uu sheegaya caqabadka marka interesting waxa ah oo ugu badan external actors marka la fiiriyo labo ayaa la fiirinaya yani caqabadkan waxa uu kala soocaynaa labo annaga markaad aragto hadda bal مثلا from Carta ilaa iyo hadda oo third republic wax la yiraahdo aan samaysanay oo 5 madaxweyne cayrinay 4 cayrinay oo mid hadda noo joogo oo loo asaga bidiya loo lisanayo markaad inta isu eegto wali state-keeni ma aga dhigan askar dibadda waardiyeysa maxaan ku iraahdaa waxa la siiyaa maxaan ku iraahdaa kabid tusaalaha kaliya hadda idinku filan waxa waaye 600 iyo xoogaaga milyan oo miisaaniyadda ah 69% close to 70% waxa bixiya dalka dibadda just firiya revised budgetka June iska daa marka maxaan ku iraahdaa amisom iyo wax la xiriira iyo maxaan ku iraahdaa baahida ay qab marka waxaad kaloo iska daysaa ayadan oo inta ka sii badan development taageerada developmentiga ee ka baxsan state marka waxaad arkaysaa dawladeennii wali way taagsan laadahay oo xataa kuwii afrikaanka ahaa meelaha ay soo gaareen waa soo gaari laadahay maxaa keenay marka la yiraahdo waxaan u kala qaybinaynaa hadda waa soo koobayaa I'm sorry labada qaybood hore externalka iyo internalka yani dibadda waxa ah iyo unfiyada ama maxaan ku iraahdaa waxyaalaha maaragtay dibadda naga ah annaka iyo waxyaalaha annaka dhaxdeeyada ku xiran mid ugu horeysa waxa waaye intii muddo ah waxaan haysan jirtay problem ah awoodaha waaweyn ee dunidu ma aysan danaynaynin dalkan markaad u barbar dhigto sida ay meelaha kale ugu gurmadeen maxaan ku iraahdaa waxay dhahaan absence of major power interest yani markaad eegto iyo sida ay annaga xaaladeenu ahaa markaad siyaasadda Mareykanka oo kale Soomaaliya eegto waxaad arkaysaa inaysan sidii la rabay interestiga u siinayeen ayna u siin jirin Soomaaliya mararka qaarkood waxaa imaan jiray interesti aad culus oo naga culus bal مثلا operation restore hope oo kaleeto hal maraa waxaa yimid wax badan deedna uu iska tegay marka waa exception xaaladaas laakiin inta badan markaad eegto siyaabaha ay u approach gareen Liberia Sierra Leone Rwanda iyo sustained effortiga yani ma aysan nasiinaynin yani tusaale hadda ugu dhow markaad qaadato Somaliland iyo Soomaaliya hadda markii la heshiisiinayo Djibouti la soo geeyay iyo markii Sudan iyo South Sudan peace accord-koodu ka socday markaad eegto Mareykanka fiiriso level of political investment-iga ama political capital-ka waxa la dhahayo markaasna waxaa Suudaaniyiinta waxaa dhex fadhiyay senator Danforth in la yiraahdo oo senator ah annaga Soomaaliya ishugeedana mar walba safaaradda unba maareynayay inta badan
markaa fiiriso marka interestiga maraykanku ama xataa awoodaha kale la mid ma ahayn kuwii kaleeto ka labaad wuxuu ahaa dowladaha deriska nala ah kaasaana ugu khatarsanaa in muddo ah dowladihii Ethiopia iyo Kenya gaar ahaan Ethiopia waxay ka shaqeynayeen inaan Soomaaliya dagaalkeedu dhamaan maray hub soo siiyaan maray qabaa'il ururiyaan maray yani xaqiiqatan waxaa la dhahaa marka literatureka civil warska marka laga sheekeynayo waxaa la dhahaa presence of hostile neighbor haddii uu jiro daris col kula ah oo ka shaqeynaya inaadan weliga cagdhigan ma cagdhiganaysid yani oo ma xasilaysid yani annaga marka runta loo hadlo hadda Ethiopia way isbedeshay oo waxbaa la sheegaa laakiin nidaamkii meesha ka dhacay oo hogaaminaya Malla Zanaawi wuxuu ahaa nidaamka ka shaqeey jiray Soomaaliya inaanay marna caga dhiganin jabhada abuur tan kale ceyri wax samee marka dambe invade garay wax aan adigu maalin walba mushkilu noola soo taagnaa welina anigu ma aaminsanin inuu dhamaaday laakiin sidii hore inuu hadda iska bedelay ayaad moodaa marka labadaasi waa labada dibadda ah waxaan rabaa inaan dhaqso marka u gabagabeeyo sideedaba kama wada hadli doono labada ugu daran maaragtay annaga dhaxdayada ah actually aan babadiyo waxaa ka mida marka qolada maxaan ku idhaahdaa Stanford iyo researcherska ah waxyaalaha ay sheegeen haddii ay ka jirto dalkaas civil war uu ka dhacay qolo rabta inay go'do oo ay ka go'do inta kaleeto secession la yiraahdaa inuu ba secession issue jiro oo kala go'idahi ayadana waxay keentaa dagaalkaas sokeeyay inuu cirib dheeraado oo waqti dheer uu qaato waa waxyaalaha ay yani ay ka fiiriyeen markay fiirinayeen dagaalada sokeeyaha dabcan annaga ishuugeen waa cadiha Somaliland waxay rabtaa inay ayadu sida u dhigto withdrawal ka samayso ama ay ka go'do Soomaaliya inteeda kale ama Soomaaliya sorry waxay rabtaa inaanay arrintaas saas u dhicin ishuugan Somaliland iyo Somali Republic waa politically sensitive laakiin doodahooda uu leeyahay taas waa mid tan kale waxaa runtii dhibaato ayadana ah waxaan ay dhahaan spoilers aan dhaweyd warqadda Mareykanka uu soo diray qaswadayaalkaas ayagu waxay ku sheegaan spoilers meel hadday spoilers ka jiraan ayagu marka spoilerku waxay waa literature fara badan ayaa ama waxyaalo fara badan oo studies laga qoray marka sidaas Soomaalidu hadda iskaga fududeysanayso uma fududa waa qaybuu kala leeyahay maxaan ku iraahdaa istaraatiijiye kala duwan ay isticmaalaan mararka qaar waxaa ku jira kuwo iska dharcad ah mararka qaar waa kuwa qoryaha sita waxaas faraha badan laha ku jira marka laakiin meesha hadday ka jiraan qolyo ka faa'iidaya dowlad la'aantu inay sideeda ku sii socoto noocay rabaanba ha ahaadeene oo ay saameynna leeyihiin ayadana waxay noqotaa arrintaas ayada ah maaragtay waxyaalaha daba dheereeya dagaalka sokeeyaha ee hor istaaga dowladii inay dhalato waxaan u malaynayaa annaka naguma yara qolyahaasi ayagoo noocyo fara badan waa nala joogaan xataa ayagoo siyaasiyiin oo madaxay ee hadda laga yaabaa inay ku jiraan systemka ama madaxyo kala duwan soo noqday dalka spoilerku basically wax kale ma ahane qofku dantiisa wuxuu ka arkayaa in waxaana ay sii socdaan ama uu qaso meesha wuxuu qasi kara qaso arrintaas ayada runtii waa wax oo common ah oo laga soo arkay dagaalada sokeeyaha ee adduunyada marba hadduu jiro qof aan ogolayn in waxaan laga baxo hore looga baxo oo haddana awoodii leh awooddaasi si sharciya ama si sharci darraa waxay rabtaa ku timaadee iyadana runtii waa dhib jira ugu dambeyn waxaan rabaa qodobka ah lack of resources waxaan dhahayo sideedaba dowlad in la dhiso oo dagaal sokeeye la dhameeyo waa mashruuc aad expensive waa yani qaali waaye waxaa laga hadlayaa balaayiin dollara laga hadlayaa
balaayiintaas dollar intee laga keenayaa Soomaaliyiisa ma haysaa annaga runtii ayagu Soomaali kaliya ma dhaheen waxay dhaheen meesha haddaan resource ka jirin oo international community-guna bixinay qolada loo qabanayo shaqada oo dagaalka isku laga saarayana aysan bixi karin dee markaa waxa waaye dagaalkaas ma dhamaado inta badan annagana runtii waxyaalaha ugu badan ee maanta aan isdhihi karo dowladnimadeena way hortaagan yihiin waa lack of resources markaa fiirisid hadda tusaalaha aan idin soo qaatay ah dhaqaalaha dalkan la rabo in dowladdiisa lagu dhiso markaa fiirisid iyo meel ka imaanayo 168 milyan oo dollar ayaa dowladda dhexe waxay tiri waxay ka timid maxaan ku iraahdaa internal revenue collection yani dadkan ka soo aruurinay lacagta inteeda kale 70% inteeda kalena mashaariic iyo kabid ayaa naloo siiyey adduunyada kama dhici karto yani lacag intaas la eg ayada dhan marka la isku daro 700 milyan oo dollar aan dhamayn in dal dagaal sokeeye intaas ku jiray oo adeeg u baahan oo hay'ado u baahan oo ciidan u baahan oo mushaar u baahan lacagtaas loogama saari karo mana lahaayo dal inta dhaxa anaa bixinayo yani macnaha literature-ka marka civil war-iska iyo conflict-ga laga hadlayo dood xoog laha ka jirta oo yaa lacagtaan bixinaya ah who should pay David Layton nin la yiraahdo oo Soomaaliyana hadda ka hor wax ka qoray laakiin markii dambe raashka iyo aad wax uga qora iyo waxay qoreen ayagu article dheer oo they call it the neo trusteeships marka waxay ku doodayaan labada doodood oo meesha taal waxa ay leedahay those who can afford should pay qolada lacagta haysta waa inay bixisaa adduunyada so World Bank iyo IMF ama American kuwaasi waa inay bixiyaan morally okay وكل waxay leeyihiin maya qolada shaqada loo qabana waa inay bixisaa oo maaragtay xataa hadday san haysan ya see la yeelayaa marka waxaa timid marka waxa la dhaho East Timor maaragtay tijaabo East Timor laga sameeyay oo ah waxaa la yiri Australia ayaa waxaa la yiri lacagta ku baxaysa dhismaha dowladnimada bixi offshore oil-kana u soo saar marka offshore oil-ku u soo saartana dabadeed lacagtii aad maaragtay aad deyn ahaan ku siisay ka sii qaado ka qaado lacagtaadii waxaana loo sameeyey marka guddi qaramada midoobay arrintaas si aanay u dhicin inay Australia dulmiso oo ay dadkan exploitation ku samayso guddi arrintaas ilaaliya marka waxay ku magacaabeen marka waxaa deyn laga sii qaadanaa mustaqbalka generationada soo socda laga sii amaahanaa beeso markaasaa lagu shaqaynaa markaad fiiriso marka hadda Soomaaliya oo kaleeto ayadoo la yiri hadda oilkan waxaa la sheegayo oo Hobyo ilaa iyo Baraawe ilaa iyo maaragtay laga sheegayo oo ku socda habkan habhazarka oo si bobka ugu eg ku socda waa ayadoo la yiri marka international community-gu ha timaado qaramada midoobay commission iyo waxa u sameeyaan marka dalal ama dal lagu og yahay shaqadaas ay qabanayaan oo lagu kontrooli karo iyo hab loo kontrooli karo loo sameeyo dhaqaalaha ku baxayana dalalkaas ha bixiyaan state building-ka Soomaalida waa ayadoo saas oo kale leeyahay laakiin ala kulli xaal meeshan dhaqaala darrada jirta maanta oo dhan waxa lagu meereystaa waad aragteen mushaaran baxshay 4,000 oo wiil ama 5,000 oo wiil mushaar siiyay ama ma bixin mushaarkiya la waayay yani marka waxa arkaysaa marka resourceska aan rabno inaan dawlad ku dhisano inaanay gacanteena ku jirin gacanta ay ku jiraan طبعا danay meesha kale danahoodii ay ka fiirinaysaa maalintii laga waayo waa laga daahinaa adaab iska tagayaba marag xataa aydoon waa laga goosan lagu dhihinaa laga daahinayaa marka runtii waxaan obstacleska ama yani caqabadaha dawlad dhiska hortaagan waxaan rabaa inaan intaas ku joojiyo oo aan su'aalaha dadka waxa ka imaanaya iyo aan si isula falanqeyno haddii alla yiraahdo marka waan soo maxaan ku iraahdaa koobaya waxaan iri 3 saldhig oo waaweyn ayaa dagaalka sokeeyaha keentay
oo mid tartankan powerka iyo resourceska loogu jiro oo la rabo in la isku dulmiyo ilaan wuxuu noqotay awooddii haddaad adigu haysato inaad wax ku dulmiso haddii qof kale haysan in lagugu dulmiyo powerkii dhimbishaas ayada powerka political scientists waxay dhahaan waa dhimbil daba ama dhuxul daba dhuxul yani dhuxushaas haddii aad maaragtay ama waad ku gubanaysaa waxaa lagaa rabaa marka inaadan kuna guban manaafacadsatana oo wixii dhibkeedana aad iska xaydo wixii dhurkeeda ahna aad soo xijiso aad isticmaasho waxaa laga sheegaa berigii maxaan ku idhaahdaa maraykanku ay kacaanka dhisayeen samaynayeen dooda Philadelphia socotay yaa waxaa la weydiiyey Madison war maxaan rabnaa dowladda aan raadinayna waa noocee say u egtahay marka waxaa erey caan noqday jiro political philosophers inta badan ay ka sheekeeyaan oo wuxuu yiraahdaa waxaan rabnaa a government that is too distant to harm and too close to help macnaha dowladdu markay rabto inay dhibaatayso dadka waa la iska daba wareejinayaa waxaa la samaynayaa waxaa loo samaynayaa waxaan la yiraahdo checks and balances mar congress lagu xiro mar maxaan ku idhaahdaa sanad la hoostaajiyo mar maxaan ku idhaahdaa judiciaryga waarta Trump waxa haysta maalin walba qoliyo maxkamadda u taagan way soo eriyaan markuu damco inuu yani isdaba marsiyo waxa haddana jooga meeshan maartay stadiyo maxaan ku idhaahdaa ka duwan waxa marka legal systemkii waxa loo sameeyay dowladdu marka ay rabto inay dhibaato u geysato muwaadinka waayo fundamental assumption waxa waaye dowladuhu waxay halis ku yihiin libertyga yani xorriyadda ay halis ku yihiin marka xorriyadda si aanay halis ugu noqon marka waa in la iska daba wareejiyaa waa marka waa la fogeynaya markay damacdo inay wax ku dheesho marka ay rabto inay wax caawisana wadooyinka dhan waa loo furaya ma fahamti oo qofka muwaadinka ay caawiso marka annaga runtii arrinta powerka taasaan ka eri waxaan ku xijiyey dhibaatadii militariga iyo xooggii ay isticmaaleen waxaan ku xijiyey colonial legacy ama yacni wixii aan ka dhaxalnay gumaystayaashii oo na dhigay meel aan aad yacni meel xuna hadraawi waxaan ka maqli jiray meel xun ayaa yacni oo ku jabay qofkaas yacni waa nin hadda ka hor tuug ahaayo hal xaday oo maaragtay booraan agteed intay ku haraadsay bowda ka jabay markaad meel xun ku jabto ood meel xun ka jabto yah oo wax xun dartood aad u jabto waa wareer waaye runtii marka taasna waa midda waxaan ka sheekayay ayadana contributing causeska dabadeedna caqabadaha halkaasaan ku joojinayaa waad mahadsantihiin soo dhawaada wixii su'aalaha aad u mahadsantahay professor Afyar Cabdi Cilmi muxaadarada aad u koobneed aad u qurux badneed xoogaalnimada ku dhisneed oo taariikhda fog ee midda casriga ah ee hadda aan joogno isabaha sabab burburkeena ka sheekaysay dadaalo loo galay sidii dowladnimo Soomaaliya loo dhisi lahaa haatan waxaan soo gaarnay waqtigii dhageystayaasha iyo soo qaybgalayaasha ay su'aalaha weydiin lahaayeen professorka qaarkiin waxaa ku soo qorteen qaybta qoraalka qaarna gacmaha idin taagan marka waxaan samayn doonaa qayb ayaan qaadi doonaa dhowr roundkii ba 5 su'aal ayaan qaadi doonaa waxaan ka bilaabi doonaa dhageystayaasha gacmaha u taagan yihiin waxaan ka bilaabaa Amiin Macruuf Amiin mikrofoonka waa ka furay su'aasha horugal magacaaga meesha joogtid iyo su'aasha ay qabtid السلام عليكم أستاذ كواسلامة أستاذ أفيرة يوكاش بوسلامة أمين معروف واي اسطنبولا جوجا اسطنبولا كصورما سؤال شيء ذو سهدي لدهنا ويسهلن تاي ضد بدنا وجعلان لهين إني أقالان أنا آد بانو حيسيني أستاذ حد واحد كورنتي وحيابها اللي لباتوين كصوماليا civil work وحيابها سلقة وها marka la eego wili caqabadahaas oo dhan way jiraan oo wax taagan waaye haddana 20 sano ugu dambeysay dowladnimada aan haysanay oo qori isku dhiibka ahayd ma jirin guideline ama nidaam sax ah oo la sameystay oo la isku raacay
oy dadku wada abide gareeyaan oo ay wada hoggaansamaan marka waxaan rabaa inaan ogaado waxay tahay dawladda Soomaaliya maanta maxay isku raacsan tahay ama dadka Soomaaliyeed maxaa isku haayo oo hore u wadooyo ilaa ma jiro maanta dastuurkan ku meel gaarka ah xitaa maxkamad ilaalisa iyo gudi dastuur maxkamad dastuur oo ilaalisa cid ku dhaqantay iyo cid jabisa ma jirto marka waxa isku haayo dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimada naftirkeeda oo maanta hore u wadooyo ma is afgarad ma heshiis aan qorneen oo la gaarayba ma isku tur iyo inay dadka isku turayaan in Soomaaliya hore u socotaa ma dastuurkaasi sax ah loogu dhaqmooyaa maxay tahay waxa saxda ah ee dadka isku haya maanta ee hore u wadooyo dawladnimadan inta soo gaarsiiyay iyo waxa aan fil iyo meesha loo socdo wax lagu gaari karo هذا ما زلت أمين سؤال واضح وحام سينا يا هدنا أوكات عبد الرحمن الشاب رئيس قرنت أوكات مكفونك وكافوري سؤال شهر هروب السلام عليكم والسلام عليك يوم بروفيسور كا بروفيسور كا هو يدينا إلا 20 سنة دولة نور دسنتها أي جشة مركا maalin walbana waa la shirayaa murteeda la soo saarayaa wax ka soconaya malahan waa dheeraatay dawlad dhisita ama state buildingka Soomaaliya marka social structure-keena iyo waxa iskaga xiran shirarkan iyo waxaan ballanta ma professor ku weydiinaya هذا ما سنت أوكات هذا ما سنت waxaan hadda u yeerayaa Cabdi Axmed dhageystiga qorantahay dhageyste su'aasha bismillaah محمد أركاشة بروفيسور عفيرة بعد هايبد وهرمود وياه بروفيسور دوديشة هذا نوع مهد علينا مدشان قيمها بدن نوفض ضيين مطلبات بروفيسور عفيرة علمي أو وقت نسي وأدنى فائدة وهذا نوع مهد علينا سؤال شيء إذا وحوالي 20 سنة كدب عرضة صومالي ذا اسمنا عفن محكمتكم كلبحين كلامنا عتكان maxaa sabab u ah inay Soomaalida kala bixi weyso dhibkii kadib in maxkamad la aado ama dhibkii kadib in la iscafiyo oo hadda waa ognahay Soomaalida jabhad ka adkaata male qabiil xuduudkiisa dhaafayna ma jiro inta ka warqabno marka maxay intaas u dhaafi la adahay oo 20 sano maanta wili cabsi loo dareema oo in dhib dhaco oo aan lagu kala bixin su'aasha kale oo professorku weydiinaya waxa waaye horta yaa horeeyo ukun iyo dooro miyaa hogaamiye ma horeeyo ummad samata bixiyo mase ummad fiicana hogaamiye fiican doorato marka waa mahadsantiin dhammaantiin هذا ما سنت عبدي كويس waxaan akhrin doonaa laba su'aal oo kale oo dhageystayaasha soo qoreen kadib 5 su'aal ayaa professor siin doonaa kadib aan round kala fureynaa dhageystayaasha su'aalaha soo qoray waxaa ka mid ah dhageysta lagu magaciisa ku sheegay inuu yahay Yusuf su'aashiisa waxay tahay SYL ma la dhihi karaa waxay ahaayeen Talyaani u yaal furin jireen ajedooyinka Talyaaniga ayuu leeyahay dhageystayaas dhageysta kale oo magaciisu ku sheegay Cabdi ku soo koob Cabdi wuxuu leeyahay ma la dhihi karaa burburka waxa qayb ka ah xukunka askarta oo aan la jihin kadib dagaalkii 7 ka yimaadeen kadib dagaalkii كيما أسكتوا أنا جهين ما كيهين بربوركا كواس وشن سؤال بروفيسور شن سؤال كسيني هذا أوكي وأنا بوبسيني أساس سؤال فرق بدن وقت اللوجو هلو Soomaalida maxaa isku haya hadda state keeda ma ayaga rabitaankooda iskula jooga mase maxaan ku iraahdaa waxa isku haya wax kale horta mashruuca dawlad dhiska ee meesha yaala badidiisu waa mashruuc ay international community aslanna ay ayagu support gareeyaan ayna haddana ilaaliyaan marka waxaad arkaysaa marka just haddaad lacagta fiiriso ama legitimacy-ga fiiriso sharciyada hadda muwaadinka Soomaaliga weli inta badan waxaan ka hadlayaa Somalia's national maxaan ku iraahdaa government may doortaan ayagu dadka weli waxaan joognaa nidaam oo early ah oo qabaa'ilka dad jooga ay iska soo jacburiyaan marka legitimacy-gii iyo dhaqaalihii
iyo amnigiiba waxaa u haya bulshada caalamka waxaan aaminsanahay aniga hadda inta wax soo gaareen oo runtii aan meel fog ahayn faktorka ugu weyn isku hayay soo kooli dowladnimadan hadda curdinka ah waa taageerada dibadda ka imaanaysay dabcan Soomaalidu wuxoodii waaye laakiin marka ay ayagu gacantooda ay maaragtay wax ay kula soo baxeen ay haystaan oo ay iibsan karaan hubkooda oo ay ayagu isdifaaci karaan markaasaa waxaa la dhihi karaa nooc oo maaragtay ay Soomaalidu hormuud ka tahay meesha jooga taladooduna ay qaadasho leedahay laakiin hadda markaad fiiriso dastuurka markaad fiiriso sida wax u socdaan waxani waxay noqdeen project oo international community centered ah oo international community ay hayso Amin waa ku salaamay Amin arday waxa waaye ay thesis-kiisii aan la socday oo dadaal badan ma sha Allah waa mahadsan tahay su'aasha labaad waxa waaye dowlad dhiska waa dheeraatay bahashu waa dheeraatay aad u dheeraatay mana soo dhow haddana see la yeelayaa wallahi waa run arrintaas ayada ah essence-ga yacni nuxurka dowladda Soomaaliya la dhaho ama Somali Republic-kii hore dhulkii ay joogtay ka talisa dowladdaasaa weli lagu muransaya ma labaa ka dhalanaya ma shanaa ka dhalanaya ma tobanaa ka dhalanaya meesha ay bahashu u dhimanaysana waa meeshaasoo aan heshiiska weliba laga ahaynba marka dowladda aad sheegayso oo horta bal nuxurkeeda in laga heshiiyo oo eliitku ay meel isku raacaan waxbay ahaan lahayd taas waa mid tabartii dhaqaalana waaban ka sheekeeyo tabar hadda dowladdii aan ku dhisannana ma hayno I think doodaas su-aashaas waxaa ku xigta su-aasha ah Soomaalidu mana heshiin mana kala adkaan marka sidee wax lagu samaynayaa waa run horta dooddu waxaa jirta dhehayso civil warradu labadaa unbay mid ku dhammaadaan military victory iyo waxaan ay dhahaan negotiated settlement marka settlementiga hadda annaka aan gaaraynay inta badan ama heshiiska la gaarayo wuxuu u badnaa power sharing intaan qaaday intaanan qaadanaya waxbaa meeshaas lagu soo kala goosanaya intaasaa marka laysla waardiyeysanaya 4.5 iyo waxyaalahaas iyo waxay daliil u yihiin wax noocoon maaragtay heshiis ah laakiin heshiiskaasi oo weli uu qabyo yahay dhinaca reconciliationka iyo forgivenesska iyo waxyaalaha noocaas oo kaleeta wuxuu ka mid yahay 4 qaybood ee dowlad dhiska ee waaweyn qayb ka mida waaye qaybta cadaaladdu marka badanaa waxay la macaamishaa dhinacan oo heshiiska marka laga fiirinayo dambiyadii dhacay dagaaladii sokeeye dhexdoodii see laga yeelayaa miyaan iska cafinaa mase waa la ciqaabaa dadkii mas-uulka waxaan ka ahaa mase meel dhexo waxaa jirta lustration la yiraahdo lustrationka waxa waaye qofkii waxba la ciqaabi maayo laakiin waxaa loo diidayaa xuquuqda siyaasadda waxaa leeyahay mar dambe xil qaba maysid ama huud iyo ancaam akhri haddaa rabto meeshaada iska joog laakiin ma qabanaysa badanaa east Europe laga isticmaalay nidaamkaas laakiin waxaa haddana jira ayadoo laysbursaday oo maaragtay maxkamada la geeyey dadkii dhibaatada geystay waxaa kaloo jira iyadoo laga heshiiyey oo la yiri cafa Allahu camaa salafa yani wixii dhacay waa ka tagnay marka su-aasha ayada ah aniga ma aaminsani weli in ay xajmigii ay lahayd lagu address gareeyey reconciliation conference berigii Cali Khaliif ayaa mar mid magacaabay dabadeed wixii ka dambeeyey sidii la rabay wax uma shaqaynin marka waxaa I think waa waxyaalaha qabyada ah ee noo dhiman ee laga rabo dadka dowladda madaxda ka ah inay hogaamiyaan su-aasha ama hogaamiyey ummad wallahi horta waa su-aal adag waa dhacdaa qof hogaamiyaha wanaagsan inuu
ilaahay sabab uga dhigay inuu ummadda meel fiican gaarsiiyo waxaa kaloo dhacda ummad wanaagsan in qof hogaamiyaha xuni uu dhibaateeyo marka iska su'aal theoretical ahoo aanan hadda jawaab rasmiya u haynin laakiin waxaan isleeyahay wax uun qof hadda uu hal qof oo mansab hogaam helay oo siduu rabaha ku yimaadee wax gaar oo keligiis qaban karo ma jirto waa in oo marka waxaan cali sugulo mar wuxuu lahaa dirac keli ahaantii dalaal guusha kama helo dadkaa geesi lagu yahay marka macnaha waxa waaye qofka xataa fiicani wuxuu wax ku yahay dadka waa inuu marka dadka taladoodii iyo wuxoodii sameeyaa marka xaaladdu hadda meesha ay maraysana meel qof wax ka galaba ma aha waa meel institutionno in la dhiso u baahan institutionno sharci ku dhisan marka waxaan isleeyahay aniga focuska qofkaba in la yareeyo oo institution oo sharcigu xukumo xoogga la saaro ugu dambeyntii laba su'aaloodoo qoraalka ah SYL xisbi Soomaaliyeed bay ahayd wax badanaa ka kharibnaa wax badanna way hagaajiyeen oo xorriyaddan hadda la sheegayo at least qayb weyn ay ka qaateen marka waxaan isleeyahay yani haddii xataa la qiimeynayo waa inaan la dulmine yani si fair ah loo qiimeeyaa waxtarkeeda iyo waxyeeladeeda marka maxamed xaaji mukhtaar iyo cali jimcaale iyo maxaan ku irahdaa raggii hadda meeshaan ka horreeyey I think 5 muxaadare ugu horreysay ingiriis iyo maxaan ku irahdaa group baa arrintaas soo qiimeeyey marka waxaan u malaynayaa inaad doodaas aan dib aan loogu noqonaynin xukunka askarta su-aasha la xiriirta horta askari sideedaba wuxuu ku fiican yahay shaqada oo mucayanka ah oo askarinimada ah inuu ku koobnaado xukunkana ay dadweynuhu maalinba qofkay u arkaan inuu shaqadan ku habboon yahay every few years ayagu ay go'aan ka gaaraan oo ay yidhaahdaan kanaan u dhiibnay maalintii waqtigiisu dhammaadana uu iska tago yani horta saasay aniga igula habboon tahay askartu markii ay meesha yimaadeen dee waxay la yimaadeen digtoonow iyo haddaad joog tiraahdo waa ku dilayaa maarata tiyaana hadda dhibaatada meesha ay joogto soo gaarsiisay waxaan isleeyahay marka wax casharka ku jira meeshan waxa waaye askari iyo askar waa baarakiskoodii in lagu haayo oo ay meeshoodaas ku joogaan oo dalka shaqada ay u qaabilsan yihiin ay u qabtaan laakiin askarigii u baahda maraykankan hadda waxyaalaha guulaha waaweyn oo gaaro waxaa ka mid ah askar waa jirta madaxweyneyaal soo noqotay askartaas madaxweynaha soo noqotay markay askarta ka saraakiishii ciidanka haystay madaxdeeda ka mid ahaa markay u baahdaan inay siyaasad galaan askarinimaday kasoo tagayaan dadkay xukunka u raadsanayaan marka waxaa la rabaa yani xoogaa adduunyada inaan wax ka barano nidaamkan hadda soo far le isleeyahay waa shaqeeya waxaa waaye waa nidaamkan dimuqraatiga ah nidaamka dimuqraatigana waxa waaye qof meeshaan joogaa ma jiro maalinba mudka markaas jira waad aragteen hadda nidaamkan maraykanku hadda annaga ani kanadaan jooga hadda maanta aan idila hadlayo waa noo daris waxaa meesha jooga nin Trump la yidhaah nidaamkaas wuxuu soo saaray Trump iyo Obama oo isku xiga ma garat marka waxaan rabnaa annaga magaaladan dalka waxaa noo jooga nin Trudeau la yidhaah nin fiicana oo aan yani leadershipkiisa u aragno inuu wax wanaagsan yahay marka waxaa la rabaa systemka berri waxaa laga yaabaa ka uu kala wareegay dhiblow ah marka waxaa la rabaa yani in system soo saari kara dadyow kala duwan in la qaato waan soo dhameeyey cukaashow professor aad mahadsan tahay waxaan haddana bilaabeynaa roundii kale ee su-aalaha waxaan ka bilaabayaa 2 su-aal oo qoraal ah cabdisamed cumar qof la yiraahdo wuxuu leeyahay professor waxaan ku weydiin lahaa dowladdeena iyadoo aan weli lugaheeda si fiican u istaagin haddii loo sameeyo debt relief qabad kale kuma aha dib u dhiska dhaqaalaha su-aashiisa su-aal noocaas oo kale cumar xayle dhegeystaha yiraahdo wuxuu leeyahay bacdama ee dhacday cayrintii Soviet Union Sovietka ceyrintooda dowr intee leg ay ku lahayd burburka Soomaaliya
laba su'aal qoraal ah waxaan hadda siinayaa dhegeystayaasha gacmaha u taagan tahay waxaan ka bilaabay Nawaal Axmed Nawaal mikrofoonka waa kaa qaaday waa kaan furay su'aashaada hore u galgal magacaaga saddexaad iyo meesha joogtay su'aashaada okay sure let's salaam السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته magacaygu waa Nawaal Axmed waxaan joogaa magaalada Garowe waxaan jeclahay inaan weydiiyo 3 su'aalood su'aasha koowaad waxa weeye nidaamka federal system ku badbaado ma uu yahay nation building ka dalka su'aasha labaadna waxay tahay professor ma dhaqaalaha dawlad dhisa mise dawladda dhaqaale dhista waa mahadsantihiin Nawaal Maxamed Muumin Maxamuud dhegeysta kale محمد عطوة كافوري بليز سؤال هذا ويدي بروفيسور كا السلام عليكم وعليكم السلام دمان عليكم السلام ورحمة الله كرام بروفيسور أفير علمي ودك حرنا هذا أنت سوق بالسلام تمرع ومحمد مؤمن علي حمود وحن جوجا قال مقدشو كرام حنكمل أرضك تخرج كلية اللغة سنة كان جامعة برادر سؤال شيء waxay iska saaran tahay laba su'aalood midda koowaad waxa weeye professorku nusoo ka dhawaajiyay waxa ka jira Soomaaliya arrimo badan oo bini'aadantinimada ka soo horjeeda sharci darrada ku ah qaanuunka caalamiga ama dalka gudihiisa ha noqoto dad walarada waxay ka geysteen ama ha noqoto faragelin shisheeye maxaa u diiday in la mariyo hababkii la mariyay dadkii mujrimiinta ah oo dawladaha kale sida Rwanda oo kala maxkamada ama loo qabto ama sharciga lala tiigsado midda labaad rabo inaan weydiiyo waxa weeye maxaa kaga aadan aqoonyahanka Soomaaliyeed dhisidda dawladnimada Soomaaliya oo aan ahayn in macnaha war la sheego oo theory iyo wax la akhriyo sabab la sheego oo practical ama wadaad ha noqdo ama professor ha noqdo ama arday ha noqdo ama macallin ha noqdo maxay ka qaban karaan dhisidda dawladda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin هذا ما صدق محمد وحن حتى نقول يا حسن شفات كسوق قبل أو قررت هاي حسن سؤال هذا ويدي بروفيسور كا هلو حسن اوكي وهذا يا ديني احمد علي بسم الله ما لا مقنع هذا بقول مقنع بدي بسم الله waxaan dhowr su'aal aan rabaa inaan weydiiyo professorka midda koowaad dawladda Soomaaliya inta aan naqaano maxkamadin ma jirto nidaamka ilaaliso oo berito hadii la isku dhaco iyo saasoo kale marka nidaamka Soomaaliya duruufta uu ku jiro muddo intee la eg oo sii jiri kara mar haddii ayna maxkamado iyo wax kale aynan haysanin oo cid sharciga ilaalisa ayna jirin soo ma fududa mar kasto inay burburto waa su'aasha labaad ma jira qaab la isleeyahay waa lagu samayn karaa xisaab dib loogu celin karaa dadkii yani xilliyadii burburkii dambiyadii geystay ma burburkii ka dambeeyay ama xilliyadii burburkii dambiyada adag sameeyay mustaqbalka ma jira qaab loo ciqaabi karo ama maxkamad loo saari karo midda saddexaad ugu dambayso dawladda Soomaaliya maadaama ay tabar yar tahay dhaqaalana ayna haysanin suuragal ma tahay wadan sidii Turkiga oo kala in ay la heshiiso ay kula heshiiso tusaale ahaan in shidaalna u qodo amnigana oo u sugo xuduudaha iyo dhinac walba amnigana u sugo dawladana kabo dhaqaalana siiyo then ay kula heshiiso berito in uu shidaal u qodo markuu shidaal ama macaadinta ama saasoo kale dhaqaalaha uu soo saaro inuu percentagekiisa berito dib uga goosto haddana soo dawladda Soomaaliya uu dhiso macquul ma tahay ما سنتها ديني بروفيسور سؤال أنا كوسو وريجنا
waxay noo haray hal round kaliya kadibna barnaamijku waa soo gogeysanayna waa mahadsan tahay horta arrinta oo deyn cafiska ayaa ugu horeysa sida mashruuca state buildingka oo Soomaaliya oo meesha yaalla oo tusinayo horta waxaad ogaataan mar walba international community-ga ayaa waxay la imaanaysay casharo noo akrinaysay oo nadhaysaan waxyeela annaguna waan yeelaynay muddo waxaan haysan jiray wax la dhaho waa in laga gudbaa kumeel gaarnimada transitionka marka transition tasks wax la yiraahaa la sameeyay oo fara badan transition taskskaas ama arrimaha shaqooyinka transitionka muddadii loogu talagalay markay cabaar ay dhaafeen international community way fariisatay ayadoon shaqadii transitionka la qaban ayay waxay tiri waad ka baxdeen transitionka dastuurkeeni hadda wali waa qabyo security ma hayno maxaan ku iraahdaa governance systemskan wixii challenges jiray wali way jireen haddana waxaa la yiri waad ka baxdeen maaragtay transitionkii waad ka baxdeen oo hadda waxay ka dambeeya dowlad jirtaa tihiin dabadeedna haddana sidaasoo kaleeto markaad hoos u fiiriso debt reliefka mashruuca siduu u socday asaga laftirkiisu wuxuu u ekaa annaga iyo 2-3 dal oo kale un baaba ku harsanaynba decision point intaan soo gaarin waxaa la yidhi hal yar boobsiiyo oo maxaan ku iraahdaa company law u baahan tihiin this law procurement law waxaasa u baahan wixii xoogaal aad loo boobsiiyey qaarkood markaa dadka shaqada ku leh waxay yani aad sii weydiiso waxay ku leeyihiin alla og maaragtay yani tayada iyo haddii loo baahdo beritoona waxaan sharciyadan la boobsiinayo hirgelintooda iyo waxaasoo dhan runtii su'aalo fara badanaa imaanaya haddana go'aan waxaa la qaatay international community waxay dhahaysay ruuxan khadiyaan baan ka taaganaha Yurubtii maaragtay waxay rabtaa inay lacagtii Amazonta ay sii jirtay goosato waxaa loo baahan yahay Soomaalidu inay access garayso lacago ayda money la yiraahdo oo u baahan ayaguna go'aanka in la gaaro marka xoogaa waxbaa la boobsiiyay macallimiinta waxay yaqaanaan arday markuu I'm sorry waan ka xumaa inaan runtii u isticmaalo tusaalahaas laakiin arday xoogaa aan aad u fiicnayn laakiin dadaalaya mararka qaarkood darajo oo waxay siiyaan pass waa siiyaan oo ayagoo ku salaynaya inuu nasaxay su'aasha uu saxay ma aha laakiin effortiga dadaalka uu sameeyay ayagoo ku salaynaya macallinku waxa laga yaabaa inuu yiraahdo hey A for an effort marka hore u soco macnaha noocaas oo kaleeta oo dhiirigelinta ah marka yani international community inay si u dhiirigelinayso oo ay mashruuca u coach garaynayso way ka muuqataa natiijada hadda iyaga laga rabaa inay waardiyeeyaan ama waardiyeystaan xaqiiqatan hadda xataa conditionalities way u isticmaalaan dowladaha markaa jira waxay kaliya ku dhahaan ku filan performancegiina hadda sida la sheegayo dhuusamareeb oo kaleeto waa inaad wax ka soo saartaan haddaa rabtaan taageeradan inaad heshaan waa simple ayagu marka way u isticmaalaan yani inay ku hagaan wax noocaas oo kala marka waxaan u malaynayaa waa la maareyn karaa consequenceska debt reliefka waana u baahannahay lacagtaas Soomaalidu inay dowladaheedu ay helaan oo isticmaalaan waa balaayiin sida la sheegayo marka at least haddii lacagahaas accesskaas loo helo oo xataa qaar ka mid ah ay already hadda la siiyey dowladda way wax fiican waaye waxa ku soo haray arrinta Soviet Union arrimaha dibadda Soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya from 60maadkii ilaa iyo hadda waa runtii way iska rafaadsanayd wax kalena ma ahane de siyaasadda arrimaha dibaddu waxay ku dhisan tahay tabartaada gudaha tabartaada guduhu marka hadday kala dhantaalan tahay dee wax macnaahoo badan oo aad banaanka project garayn karta ma laha tan labaad tabartaada guduhu waxyaalaha ka midka waxaa ka mid ah think tanks badan inaa haysatid oo ka shaqeeya feker ka shaqeeya waxyaalaha aan xasuusto waxaa ka mid ah nin odayaashii hore 60maadkii madaxda ka ah ayaa dadkan interview gareey ka mid ah marka wuxuu ugu yiri waxaan u tagnay China ninkii madaxda ka ahaa
lixdamaadkii markii Kenya ay bixisay NFD sorry ingiriisku markuu bixiyay NFD xiriirka oo aadka u xumaaday marka waxaan ku niri oo yiri maaragtay war ingiriiskii aan la dirirnayo maaragtay markaan la dirirnay budgetary supportiga oo bixi jira naga go'day meeshii noo buuxiye marka wuxuu yiri ninkii marka madaxda meesha ka ahaa wuxuu nagu yiri war miisaaniyadiina basic ah ma dal kale idin ka timaadaa war waxaas mar dambe cid ha weydiinin oo yiri maaragtay hadda waa idin buuxinaa laakiin wixiina isku fillaysiiya horta marka mushkilada arrimaha dibaddu ama Soviet Union ha ahaato markii koowaad loo tagayna Hamas iyo qore hub baan rabnaa aan dhulka ku xoreysanaan ugu tagnay markaan eryeynana wariya dhulkii aan xoreynana naga hortaaganta oo naga marka Hamas kaas runtii dhib badana ka imaanaya siyaasadda xamaasadda ku dhisan caadifada iyo marjidbada ku dhisan marar badanna siyaasaddeena arrimaha dibaddu waxay la leecaysaa ay la dhutinaysaa wax kale ma aha annagii dalkii gudihiisii yaan si fiican isu raacsanayn federal systemku xal ma yahay nawaalay de anugu horta aragti la yaqaanaan ka leeyahay arrinkan isaga ah marka federal systemka wuxuu iiga soocan yahay waxaan la yiraahdo decentralization labadu waa laba afqalaad ah waa baahinta xukunka anugu waxaan rumaysanahay in xukunka la baahiyo laakiin baahinta xukunka marka la yiraahdo oo hoos loo daadajiyo oo si horizontal loo wado waa wax fiican nooca marka daadajinta xukunku marka la fiiriyo waxaa governance systemska waxaa ku jira wax badana ku jiro oo federaalku ka mid yahay oo wax consociation la yiraahdo ay ku jiraan oo wax delegation la yiraahdo ay ku jiraan oo yani so many things wax badana ku jiro comparative politicska marka afiirisid marka nidaamkan federaalka ah adduunka marka la fiiriyo iyo marka qaaradeena la fiiriyo iyo marka conditionska la fiiriyo waxaan anigu aaminsanahay inuusan ahayn nidaam ay dadka Soomaaliyeed ay awoodaan hadda dhaqaale ahaan ama ay maaragtay ku habboon xaaladooda gaarka ah taas macnaheeda maaha decentralization looma baahna maaha decentralization waxaa jira warqadan qoray oo af carabina haddaad wax ku akhrisan aad ku helayso af ingiriis haddaad wax ku akhrisan aad ku helayso waxaa la yiraahdaa decentralized unitary system marka colon a middle ground solution for Somalia waa xukunka in la baahiyo marka baahintaas xukunka iyo sababaha baahinta loo sameynayo iyo waxyaalaha la xiriira warqadaas oo kale xataa waxaad ku arkaysaa daraasad aan waa hore mar heritage u sameeyay marka anugu shakhsi ahaan baahintana iyo xukunka in la baahiyo oo la decentralize gareeyo waa ila sax modelka federalismka la yiraahdo oo kamida one of the models oo aan aaminsanahay inta badan hadda dadka xataa kuwa aaminsan iyo kuwa la dirirsanba inaysan fahamsanayn marka federalismka waxaan xasuustaa beri dalkan hadda aan joogo Canada waa federal system marka class waxaa jiray beriga undergraduate-ka federalism la yiraahdaa oo la qaato course-ka ka jira waa so complex yani marka runta loo hadlo yani aad iyo aad ayay u dhiman tahay macnaha wax kale ma ah muwaadinka garowe gabadha nawaalo garowe joogta ayaa waxaa la rabaa inay yeelato 3 level oo dawladeed oo ayada u khidmeeya oo midba ay shaqo u qabato oo mararka qaar mid kasta ay sideeda uga madax bannaan tahay kuwa kale waxa maanta marka debate-ka faraha badan loo ka dhex jiraa inaanay dadkii wixii fahamsanayn awoodihii faraha badnaay oo loo baahnaa oo dhaqaale ama maaragtay aqooneedna aysan meesha oolin
marka anoo og baahida loo qabo. By the way, arrintan waa inaan adkeeyaa waayo hadda waxaa soo daahiray particularly xukuumaddan oo hadda farmaajo hogaamiyo waxaa ka soo daahiray centralization ay rabaan awooddii inay meel dhexe keenaan oo ay ayagu maamulaan. Centralizationkaas runtii doodii ahayd in hoos loo dejiyo dib bay u celisay. Aniga marka taas hadda oo muqdisho hadda waxa yaalla oo ah yacni xukunkaa la soo ururinaya oo gobolladii oo dhan laga soo ururinaya aniga sax ilama ah. nidaamkan hadda federal systemka ah aan naqaano adduunka ka jirana maba aha ka Soomaaliya yaalla. Soomaaliya hadda waxaa yaalla nidaam nooc confederal system oo qabaa'il ay ku salaysan tahay oo ah yacni maaragtay u eg inuu iska kala madax bannaan yihiin oo qolo walba ay waxay rabtay ay samaynayso. marka aniga oo hadda ama muqdisho debatekeeda dhe ama maxaan ku iraahdaa waxyaalaha noocan oo kale ah dadka waxaan ku iraahdaa war waxaa la rabaa dal la wada leeyahay. meeshaana dal la wada leeyahay kama soo socdo haddii caqligan lagu socdo qabyaaladaysan wax maaragtay sidan ka duwan ha lagu fiiriyo. marka I think su'aashaas waxaa laga yaabaa inay mar kale soo noqoto laakiin xaqiiqatan aniga waxaan qabaa in nidaamka la baahiyo decentralization lagu sameeyo kaas ah. waxaan rabaa hal mar oo kale inaan arrintan muhiimadda ay leedahaan su'aashaan u dheeraynaya waxay ahayd keligeed inay muxaadaro noqoto. saddex moodala adduunyada ka jirta markii timaado basic comparative politicska marka la fiiriyo. mid waa unitary systemka faransiiska kacaankii faransiiska ayay ka soo farcantay. marka waxaa waaye waa nooca hadda adduunku u badan yahay. midna waxaa la yiraahdaa federal system kacaankii Mareykanka ka timi. waxaa la sheegaa marka form of federation iyo waxa la eego waxaa la sheegaa adiga tiro 30 dal ka yar ayaa caalamka ka ah federaal. waa kuwa waaweyn, waa kuwa dhaqaalaha badan, waa kuwa diversiga, waa kuwa dis, waa kuwa daada. waxaa jira nidaam labadaa u dhexeeya oo la yiraahdo decentralized unitary system. wuxuu ku xiran yahay kacaankii warshadaha ee Ingiriiska ka yimid. marka kaana Ingiriiska asal u ah. marka waxaad arkaysaa bal matalan hadda Scotland iyo state-ka any state or province here in Canada markaa eegto waxaa laga yaabaa awood ahaan awoodaha ay Scottish parliament iyo systemkooda ay leeyihiin inay aad u badan yihiin laakiin awoodahaas waxaa bixiya baarlamaanka Ingiriiska. kuwaana waxaa bixiya dastuurka. farqaasaa u dhexeeya. marka waxaan rabnaa bal in xoogaa arrintaas ayada ah mar waqtigeeda inta la siiyo aan si fiican isula fahmno. laakiin waxaan gabadha u tilmaamayaa Nawaala ha akhriso qoraalada aan ka sameeyey mawduucan waxba si fiican baan isleeyahay waa uu ka fargaraysay. aniga aragtidaasaan ka qabaa yani maarag beriga heritage aan xataa warqadda u qoraayay waan ku kala duwanayn aragtida oo qolada heritage-na federal systemka ayay u arkayeen inuu sax yahay. aniguna waxaan u arkay inaanay waqtigeedii iyo meesheedii ahayn. laakiin calaa kulli xaal dee dad asxaabahu ku wada shaqaynayay arrimahaas ayaan nahay. waxaa kuu soo haray dowladda ma dhaqaale abuurta mise dhaqaalaha dowladda abuurta. horta dee dhaqaaluhu dowladduna dhaqaalo waa abuurtaa. dadka dhaqaalaha lena markay dowlad abuuranayaan waa uga sahlan tahay. marka su-aashaas waa iska su-aal commona. mujrimiinta waa laba su-aal oo soo noqnoqotay. see laga yeelayaa maxaa dembiyadooda loo gey waayo international crime court. Soomaaliya to my knowledge signatory maba ahaba ICC courtiga weli ma aha. waxaana processa la mariyaayo waxaan u malaynayaa waa yaro controversial. lama sameyn. waa laga yaabaa anigu inaan waqtiyada ka mid ah artikala waxaan ku qoray Soomaaliya ha adapti garayso ICC modelka dabadeedna haba u isticmaasho dejinta dalka. laakiin ma ogi hadda malaha waxa aan dib ha loogu noqdo leeyahay ka mid tahay doodda Soomaalida dhexdeeda waa inay ka soo baxdaa. see yeelaynaa ma cafinaynaa ma ciqaabaynaa mise xuquuqda siyaasadan ka qaadaynaa. aqoonyahanka iyo doorkiisa anigu waxaan aaminsanahay aqoonyahanka
horta joyceku shakhsigu ku xiran yahay anigu hadda as qof waxaan ahay oo cilmi baare ah oo macallin ah marka doorka aan hadda leeyahay bulshada waxa waaye shaqada aan hadda ku dhex jiro ah inaan wax waadixiyoon wax idiin sharxoon adinkana wax idinka dhegaystoon cilmi baaroon caqli keenoon waxaan samayn kara sameeyo horta doorkaas anu shakhsiyan kaasaan u arkaa as researcher inaan leeyahay laakiin kaa keliya ma ahane haddii adigu aad mid kasii fiican qaadan karto oo aad shaqada qaban karto ood gacanta la geli karto so be it welcome yani ma aragti laakiin ma jiro wax door oo specifica anigu un kolley qofka soomaaliga ah noocuu raba ha ahaadee hal mid ayaan dhihi lahaa ha uga darin xaaladda oo do no harm dhib ha abuurin adigu oo haddii aad wanaag socdo u aragto ama wax ku dar ama haddaad xataa wax ku dareen ka tag laakiin ha dhibin yani mabaadiida basic ah oo anigu aan aaminsanahay in lagu shaqeeyo ana ku shaqeeyo kuwaas waaye laakiin aqoonyahan aan prescription siin karo oo aan dhihi karo taasna samey taasna samey taasna samey dee ma jiro aqoonyahankuna dee waaba iska relative soomaalidu malaha in dheergaraday isticmaashaay waxaan textbookska laga barta keliya enough ma aha maxkamad waxaan kala garsoorta ma jirto wallahi maxkamadda dhaqanaa ka horeeya dowladnimadu dhaqan waaye waxaa la rabaa qofku inuu ku istaago meesha sharcigu istaagayo ma jiro maantoo dhan qof korjeegtay kara oo qof kasta xabadda foorka uga hay kara ama sharci iyo ciqaab la kor taagnaa kale ma jirto waa inuu abuurmo dhaqan qofku inuusan markuu lightka redkaa soo istaago waa inuu asagu istaagaa laakiin haddii maantas bolis joogin hadduu marayo yani macnaha waxa waaye sharcigu wax ma taro dhaqanka wax tara dhaqanka in wax laga bedelo waaye anagu marka waxaan isleenahay waxbarashadu waxyaalaha dhaqanka wax ka bedelay ka mid tahay in la ballaariyo la baahiyo la tayeeyo malaha dhaqankaasi wax ka taraysaa marka waxaan isleeyahay yani maxkamad keliyaan lagu mamnaanine waa in lagu mamnaanaado yani broader bulshada hadda social mediadan iyo waxyaalahan lamida waxbay dadka barayaan waad arkaysaa dadku way ku dayanayaan aakhirka way la qabsanayaan marka waxaan isleeyahay aniga inaanan marna ku koobnaanin sharci iyo wax lasoo taagay madaxduna sharciga iyo dhaqankaba yani conventioniska waa inay ilaaliyaan adduunyada ilaahay caadaadka waa wax aad loo waardiyo la yidhahdo war hadda caadadu saani ahaa jirtay ha laga baxo turkey hadday na gardaadsato oo ay ayadu noo soo saarto wixii naga dhiman wixii dhaqaalahay nagu bixi kartana nagu bixiso maxaa ka waran arrintaas waa arrin fiican waxay u baahan tahay keliya go-aan dowladeed iyo maxaan ku idhaahdaa de inaan in ayadaa laftirkeeda aanay noqonin mid divisive ah laakiin waa arrin fiicanaan qabaa hadda dal nooga helanoon ogahayba ma jiraba waayo hadda waad arkaysaa ingiriiska oo kale Sierra Leone ayagaa ka saaray maraykanku Liberia iyagaa ka saaray Australia iyo Timor iyagaa ka saartay waxna gardaadsada oo maaragtay isku kaaya gadaama way fiicnaan leh laakiin annagana waxaa nala ka rabaa camal samidii iyo shaqadii yaa nala ka rabaa yani inaan samayn karno marka arrintaas ayadaan intaasaan ku joojinayaa soo dhawow the last round aad maasantay professor waxaan qaadaynaa last round oo 5 su'aal ka kooban sidii hore oo kale waxaan ka bilaabayaa cali abshir inuu su'aashiisa weydiiyo cali bashir afwan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القلاعات مجرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام بروفيسور أفير علمي. runtii maxaadaradiisa qayimka ahayd iyo walaalaha soo abaabulay aad baa u salaamaya dhammaantiin waxaan rabaa waqtigoo kooban inaan soo koobo professor horta waxaan ku weydiin lahay Soomaaliya waxaa soo dhow waqtigii doorashada waana og tahay globalka dhibaatada ka taagan sida wadamada Carabta iyo dowladaha taxaalufka Turkiga iyo Qatar marka intee saameyn leeg ayay horta ku qaadan kartaa doorashadan soo socoto globalka oo saaxiibadan nahay iskula jirna Carabta ama iskula jirna Islaamka taas waa su'aasheeda kale waxa waaye professor rabo inaan ku weydiiyo
Soomaaliya waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah ay isku xirto badweynta Hindiya iyo badda cas adduunyadana ay marto. Golaha wasiiradu waxay maalin hore baas gareeyeen organization la yiraahdo Baxr al-Axmar iyo gacanka cadbeed. Marka organizationkaas inay Soomaaliya maanta membership ka noqoto maxay faa'iido u yeelan kartaa maxayse khasaaro u yeelan kartaa? taas waa su'aal. Professor marka waxaan rabay inaan ku weydiiyo su'aal kale oo saddexaad faalaha waan dheereeyaan filayaa. Soomaaliya waxay leedahay resource oo dhaqaale sida xoolaha, beeraha iyo kalluunka. Waxayna u dhoofi jirtay sida taariikh ahaanba wadamada khaliijka inta badan. Dowladahaas mar walba waxaa dhacdo sida Sacuudi Carabiga oo kale waqtiga xajka inay u furaan xoolaha Soomaaliya bas waqtiyada kalena ay yiraahdaan xoolaha Soomaaliya ma qaadanayno iyo ma jirno iyadoo saameyntaasna sabab u tahay foreign policy-ga Soomaaliya laana nationalkeena waxa aan iib geynayso ay jiray cid ka shaqeynayso. Marka sida hadda ka dhawaajisay foreign policy-ga Soomaaliya 1960 ilaa hadda ma kula qaba fikradaas inaysan waxba ka hagaagin aysan jirin cid awoodeeda leh iyo cid karti aqooneed leh sababta bixisa. dalkani waa maraayada laga arko waa arrimaha dibadda kana gada caalamka siyaasadda dalka iyo meesha loo jihaysan yahay. Marka issue-gaas haddii la isku soo aruuriyo ma jira siyaasad ka madax bannaanaa karta government-yada hadda soo socdo oo la hordhigi karo oo la dhihi karo war dalku wuxuu u baahan yahay samata bixin economical ah. Markii laga soo tago arrimahan mar walba la sheego batroolka oo hadda hartaan weli aynan isheenu qabanin laakiin ay tahay wax baaris lagu hayo. Laakiin wixii kale oo muuqday oo dalka yaalay oo dhaqaalihii dalka ku tiirsanay aanan loo helin sidii loo maareyn lahaa. Arrintaasi maxay kula tahay fikradaada loo samata bixi karaa dadka Soomaaliyeed sidaa wada ogsoonahay dalku maanta ma lahan wax lacag ah oo dalkii dhammaan wuxuu ku soo aroor wax la yiraahdo EVC oo maanta haddii uu shutdown yimaado tusaale internetka oo kale aysan jirin cid wax kala gada karto iyo cid wax kala qaada karta. Marka arrintaasi waa arrin runtii isheeg dadku in badan isku baraarugsaneen maxaa authority kale oo bedel noqon karo dalkan loogu sameyn karaa financial iyo dadka xataa wax ku kala gataan intii xataa central bankiga xataa udbaha loogu dhigi karo oo ka duwan arrintan teknolojiyadda ah sida ogsoonahay waqtiga saameynta ee forex ku yeelatay economicalka waqtiyada hadda ugu dambeeyay ayadoo wadankana ka dilaacay COVID-19 saameyn adagna u geysatay dhaqaalihii dalka. Marka misdhihi karnaa 2020 dalku inuu cagabar dib ugu dilaaco maadaama aysan jirinba wax lacag ah. Marka bal arrimahaas sidee kula muuqataa raaliga ahaada waana isku dheereeyay magacaygana waa Cali Bashiir waana mahadsantihiin. Cali waa mahadsantahay. Waxaan hadda siinayaa Maxamed Cabdi Cali waxaa ka codsan dhageystayaasha inay su'aalaha koobaan hal iyo labo kali koobaan. Maxamed mikrofoonka waa kaa furay su'aashaada weydii. unmute محمد unmute محمد ميكروفونك كافوري ليش سؤال ودي السلام يا ايوه محمد علي مقدشو حرا انا وقلت سيدي لو صحيح دولة صومالية إلى الدولة أنا كأول أوكي لو صحيح كذا أو أنا أقول دولة صومالية Soomaaliya dowladda Soomaaliya malaha maxkamadda Maxamed codka uu gaaban yahay fadlan kor u qaad su'aashii horena ku soo ceedo maasan waxaan diiday su'aasha labaad wadankeenu maxkamadda Suuriya malaha oo kala qaada haddii tusaale isqabtaan gudaha baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka maxkamad meel macnaha kala qaad malaha
marka sidee loo xali karaa loo hagaajin karaa هذا ما سنت محمد waxaan hadda u yeerayaa jaamac cigaal jaamac unmute kale su-aashaada weydii professorka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وان شامع قال شاعق واي مقلسة هولا اسمعكم مقلة مقعي وان شاعق أبوش وحان ويدينا يا بروفيسوركا وحان مالينا يعني ما قرأنا سؤال سانو بيقول لكن إن بدنو مشاكل ودن كينا لغش كيو أما هنقطو إنك دينا كنتن هولها صعودة بدن كودا ووحيابو دشوني نجايين خلافك لفتيسه waxa sii dheereynay wax dibadina kageeyay sida adiga laftaada tilmaantay ama dariska ha noqoto ama wadciga guud haddana mushkiladeen waxay noqotay mushkilad caalami ah oo dagaal sukeeyay hadda waynu ka baxnay dagaal caalami ah wadankeena talfiilo noqon marka su'aashu waxa weeye adiga professor maxaad leedahay goormay Soomaalidu dareemi karaan inay iyagu leeyihiin arrinta Soomaaliyeed ama at least halkee loo mari karaa ويعني وحس لي حلقة هالكاس كتير عن كم ما تنت هذا ما تنت ولا بروفيسور هذا آخر السؤال قاركود اللي سوقري وحكم إذا دقيست له محمد عبد علي وكلية بروفيسور وانك سلامة سيدا الله حالين كرام أما قولي تريد البلان يمسك استأود يعني أود كل الدول له أما سيابك الأسامين يدود الدحية سيدا الله حالين كرام السؤال اللي حيرت أربعة فدرالك السؤال صلى الله وتاجر sidee hay'adaha dawliga maqan tusaalahan maxkamadda dastuuriga iyo maxkamadda sare maxaa loo dhisi lahayaa sidee loola saatami karaa hay'adaha hadda jira oo baarlamaanku ka mid yahay waa su'aal kale oo naasir ka timid dhageyste ayaa wuxuu leeyahay sidee loo qeexi karaa Somalia nation state yani Soomaaliya la xisaabinaya ama kuwa gobolada naga maqan oo Ingiriiska uu ka qaybiyay jooga mise kuwa jamhuuriyadda Soomaaliya jooga labada gobol ka kooban وإذا كلا مكان سير لو قيح كرا سومالي نيشن ستيت مكان أنت سؤالات أيام كوسو ورجينا بروفيسور وران كودم بسؤالها. قد ما تنتهي سؤال شكوى سامين الدولة ده عربتها هي قبل كيالن كران دورشة صوتها علي بشير ملاها السر معها سومالي ده إننا على دوال يرادا بوك وحوكا قري dhaqan cusub oo dawladaha maaragtay Soomaalida iyo Suudaan iyo caanka ah oo ku magacaabay waa political marketplace yani mark meel wax lagu kala iibsado waaye marka siyaasadii iska jawaan bariis ay noqotay oo suuqii lagu kala gadaayo kaleeto codadkii la kala gadanaya wixii la kala gadanaya wax noocaas oo kala marka waxa taasi marka fursad siisay cid kasto oo dan kale oo rabta inay maaragtay saameyn ku yeelato siyaasadda Soomaalida inay investment gashato taas waxay kaloo caqli waxay abuurtay inay noqoto siyaasaddu meel dhaqaale laga abuuro oo maaragtay ganacsiyada profitable-ka ay ka mid noqoto marka dawladaha carabta iyo dawladaha maxaan ku idhaahdaa gobolka kaliya ma aha waxaa involved ku maar shirkadaha macaadinta iyo petroolka iyo wax noocaas oo kala baara iyo waxyaalo kale oo fara badan involved ku marka waxaan isleeyahay marka normally doorashada iyo any important project oo jira de adduunku cidii dan kaale cidii dan ka leedahay way la macaamilaysaa oo dhaqaale way gelinayaan waxaana la filayaa doorashada soo socota inay ka badan doonto lacagaha la qarash gareynayo iyo waxa dadka danaha leh ama Soomaaliya ama aan Soomaali ahayn inay ka sii fara badan doonaan marka saameyn muuqata ama dawlad ha noqoto dawladuhu badanaa way isqariyaan waxay adeegsadaan shirkado ama shirkada ha noqoto marka saameyn aad u culus aniga waa ii muuqataa inay iman doonto haddii la yiraahdo doorashada soo socda haddayba dhacdaba su'aasha labaad strategically Soomaaliya Red Sea inay xubin ka noqoto ma ku saxan tahay horta Red Sea mashruuca Red Sea in la fahmo waay waxaa jiray debate oo aan anigu xiriirinayay laakiin ay dad mutacalimiin oo research ka sameeyay
ay ka qaateen oo Brookings Institute ay samaysay waad ka heli kartaan internetka oo aad uga hadlaya mashruucan Red Sea aslan waxaa oday ka ah Sacuudi Carabiya waxaana ujeedadiisu tahay in labada dhinac ee badda dowladaha degan la isku keeno oo markaa ay forum samaystaan sababaha keenta marka waxaa ka mid ah waxaa arkaysaa mararka qaar dhinaca Afrikana African waxay hoos tagaan markii siyaasadda arrimaha dibadda la fiirinayo African desk iyo Africa departmentiga Africa ay hoos tagaan markii dhinaca Asia marka xataa coherent policy oo foreign policy si looga yeeshaa yara adkaatay marka arrinta ayada ah strategic calculationska ku jira waxa waaye controlka waxaan loo yaqaano choke pointska iyo accesska badaha oo badda India particular badweynta India marka saddexda meelood oo waaweyn oo muhiimka ah oo choke pointska waxaa ka mid ah Bab el-Mandab iyo maxaan ku iraahdaa dhinacan Gulf of Aden iyo meelaha geeskan arrintaas ayadaa marka waxaa muhiim ka dhigaysaa Sacuudi Carabiya oo kaleeto inay xoogaa ka madax bannaanaato ku tiirsanaantii ay ku tiirsanayd Iran dhinacan maaragtay the other major choke point ee meeshaas ka jira Hormuz ku tiirsanaantii ay ku tiirsanay waayo waxay mar intii muddaaba usoo wareejinaysay waxa ay dibadda ka keensato iyo waxa ay dibadda u dhoofisaba dhinacan Red Sea-ga waxay diidaysay Iran oo competition kala dhexeeyo inay ku tiirsanaato Hormuzka ku tiirsanaato marka dood oo runtii weyna meeshaas ka jirtay dabcan Soomaaliya waa Gulf of Aden country waaye oo loo baahan yahay inay qayb ka noqoto forumka inay qayb ka noqoto laakiin de hadda Soomaaliyadii horaan hadda ka hadlaynaa Somali Republic mooyaane waxaad aragtay Somaliland iyo Soomaaliya issuegii essensigaas dowladnimadaas laftirkeeda dood xoog laha ka taagan marka ayadaasaa xal u baahan bal habkii loo xallin lahaa arrinta kale ee la xiriirta independent foreign policy ma loo heli karaa sectorska productive-ka ah oo aan dowladaha ku xirnayn maya looma heli karo dowlad wax kalaba ma maamusho intaas yaroo meesha taallay maamusha ma la sixi karaa mashruucan dowlad goboleedyada laba si usoo noqday dowlad goboleedyadan oo hadda qabaa'ilka ku dhisan oo hadda kuwana la dhisay kuwana la rabo ay rabaan hadda inay dhismaan oo hadda waxaa dood xoog leh waxaa socotay ah Muqdishona waa inay dowlad gobol noqotaa marka dowlad goboleedyadan iyo dhismahooda iyo waxooda horta anigu waxaan ka lahaa aragti iyo warqado fara badan hore aan uga qorqoray doodaydu waxay ahayd Muqdisho kaleeta hadda markaad soo qaado Muqdisho ma waxaa laga dhigaa sida maamul goboleedyada mase maamul goboleedyada waxaa laga dhigaa sida Muqdisho yani su'aasha sida la isu weydiiyey ku xiranta haddii doodu tahay reer hebelba meel bay yeesheen reer hebelna waa inay meel kale yeeshaan dee meesha dal kuma hayno markaas laakiin stateka Soomaaliya oo la wada leeyahay oo xuquuqda iyo loo siman yahay maxaan ku irahdaa mas'uuliyaadka iyo loo siman yahay haddii laga hadlayo aniga waxaa ila quman in kuwan hadda reeraha ku dhisan la israacraaciyo oo la iskugu daro ciyaalka yaryarka ee hadda marka ay soo korayaan ilmuhu waxaa la baraa sharinka wadaaga waxaan wadaaga dhaqankeennana waa ku jirtaa hadda kor waxaan xasuustaa annagoo saxaafadda ku jirnaan mar adraawi waxaan ugu tagnay sagaashanaadkii maxaan ku dhahaa Toronto marka mid walba record yar buu sitaayo afkaan ka wada gelinay maaragtay waxaan ku niri markaas su'aalaan waa weydiinaynaa sidii nin siyaasi markaas wuxuu ku yiri heedhaha mid intaad ku duubatiin hadhow wadaaga yah waxaan afkaaga gelinayna ma garatay macnaha wuxuu ka waday war
markaas waxaan xasuustaa tusaale noogu soo qaatay war xataa xoolaha caanaha marka lasoo liso ilmaha waa inta loo lisaa waxaa la jira kabootama yani maarata yani oo wadaaga ma garat marka wadaaggaas waa in soomaalida siyaasiyiinteeda la baro waaye reer walba hadduu meel wax gaar isla taago wax macnaha oo maaragtay ka dhalanaya male warqadan aan hadda referencegeeda idin siiyey conclusionkeeda waxaan ku qoray waqti horena way ahayd laakiin waxaan ku qoray markaa intii qabaa'il gobolaysan la samayn lahaa soomaaliya oo dhanba decentralizationkeeda ha laga dhigo dhowr gobol balcad ilaa iyo puntland israaci afgooye ilaa iyo kismaayo israaci somaliland sidii horeetay ahaan jirtay xamar more or less yani markaa waxaa meeshaa ka imaanaya meel reer keligii jooga ma jirto waa inaa wax wadaagga baratid waaye midda kale citizenka waxaa lagu xisaabtamayaa anagu waxaan rabnaa aakhirka dowlad leh muwaadin reerahan oo meel dhexe inta istaagay stakeholderska noqday dhibkooday leeyihin marka waxaa loo baahan yahay muwaadinkaas inuu marka serviceska uu u baahan yahay ay hay-adaha kala duwan ee dowladdu u qaban karaan laakiin maanta oo dhan qolo kale yani markaad xaqiiqatan akhrisaan dowladaha gobolada constitutionadooda weliba hadda xoogaa baryahan dambe ay soo yar ilbaxayaan waayadii hore waxay qoran jireen yani citizenship gaar ahay lahaayeen iyo dhul gaara iyo wax gaar ahay lahaayeen marka runtii waa dhib intooda la eg anigu waxaan isleeyahay marka in yaan muqdisho la maamul goboleedinine maamul goboleedyada hala muqdisheeyo oo wax ummaddu soomaaliyeed iyo stateku ay leedahay hala wado saasaan isleeyahay arrinta su-aashaas la xiriirta isla su-aashaas waxaa la xiriirtay citizenshipka su-aal ah ma ethnicity-ga cid alle ciddi soomaaliya miyaa muwaadina mase waxaa ah maxaan ku iraahdaa soomaaliya proper wixii la dhihi jiray Somali Republic haddaa rabta dheh of 1960 miyaa ah intii deganayd miyaa ah inta kale ma ajaani baa loo xisaabaya citizenship lawgeena as of today dalka ka jira haddaad Soomaali tahay by custom by tradition by language Soomaaliya tahay marka xuquuqda waxbaad ka leedahay ama NFD ka imaaw ama Djibouti ka imaaw ama ka imaaw Soomaali galbeed ka imaaw ama Somaliland ka imaaw ama koonfur Soomaaliya wixii Soomaali dhijer ka imaaw hadda saasay wax noogu habaysnaayeen dhaqankuna sidaas u ah baasaboorradeen waxaa ku qornaa jiray asagoo qofku meeshaas ku dhashay waayo xuduud weliba tan Ethiopia maba kusii jirino xuduuddu waa iska dad marka waxaa la dhihi jiray hebel Soomaaliya magaalo hebla Soomaaliya wajeer waxaa saasa yani loo dhihi jiray marka horto warqadaa jirta aan bildaan ku qoray oo arrintan aan ka qoray oo warqad dheer ah oo citizenship ku saabsan maadaama maanta ay ujeedadu tahay waxa aan la hadlayaa inay arday yihiin oo ay rabaan ardaydaani inay ay wax akhriyaan warqadaas weliba waa open access journalkaas waana warqad aad loo akhriyey for some reason oo aad loo download gareeyey marka warqadda qaata soo akhriya markaad debate u baahantiin waan ka doodaynaa taasaan ka leeyahay Soomaalidu goormay yeelan kartaa danaheeda horta taas waa su-aal aad u adag carabtu waxay dhihi jirtay qofka markuusan quudkiisa uusan asagu kontroolin qaraarkiisana ma kontrolo go-aankaagu wuxuu ku xiran yahay awooddaada adduunyadiina hadda waxayba noqotay adduunyo kulligeed iswada saameyso qolo waxaad arkaysaa le maraykan oo ka cabaadaya qolo kale faragelinteeda arkaysaa marka anigu taa hadda waxaan isleeyahay waa wax dheer laakiin Soomaalidu inay dabcan yeelato talo xoog leh waa lama huraan I hope inaanan waxba hilmaamin su'aalaha inta badan waa wada qorayay meeshaasayna hadda ku eg tahay oo ah su-aashaas nation stateka iyo citizenshipka si dheer uma geli karo referencega warqadaas isticmaala waana ku mahadsantihiin waan u mahad celinayaa
brother doodishe professor doodishe iyo brother cukaashe oo meesha oday ka iyo xasan iyo kulli waad mahadsantihiin haddaad su-aal kale jirin dee halkaasaan istaagayaa aad iyo aad mahadsantahay professor afyar cabdi cilmi oo maanta martina waa barnaamijkeena taxana ahaa oo dhawaanaha inoo socday professor aad mahadsantahay dhegeystayaashan way mahadsan yihiin waan ka codaaranaa walaalaha fursad aan u helin inay su-aalo ku weydiiyaan dabcan kulamada dambe ayay su-aalahooda weydiin doonaa hadduu ilaahay idmo annaga ku hadlaya magaca xarunta haybad professor waxaa ka codsan lahayn in mustaqbalka dhow dood kale ka sameyno arrimaha la xiriira federaalka iyo decentralization systemka siday u kala haboon yihiin Soomaaliya maadaama daraasad tiro badan ka sameysay arrintaas waxaan rajeynayaa inaad naga habashid hadduu ilaahay idmo sidoo kale aad u mahadsantahay sidoo kale walaalaha ku xiran haybad waxaan xasuusin lahaa maalinta soo socota axadda oo 9 bisha tahay waxaa soo socota dood la xiriirta arrimaha shirkii carte hindisihii Jabuuti iyo soo nooleyntii qarannimada Soomaaliya cashara laga baran karo shirweynihii carta ilaa 10 sano kadib waxaa marti ku ah Dr. Maxamed Daahir Afrax waxaana xiriir doona Xasan Mudane waxaan rajeynayaa in dadoosan ka faa'iideystaan kasoo qaybgashaan barnaamijkeena intaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.